حاسد كله عدة كوادة ودبا ونفتيس سنة هرتس دبا أو محي الهم والحزن بانو كالسيحة بل إلى دقيسو نعمتها إلهي مية قوان ما قوان نرار والبا يهبين والبا يحل والبا يساعد إلهي نقلد إلهي بساء صعطة ومد إلهي ساء سيئة كي هدب إلهي وخير سيابة هدات كنا حديد ميانا بكون عذر قبل قف الله لقف كي إلهي قرحية با نبا كي قرح بدن با هدات أذيك ودنه قع كي إلهي ميانا عذر قبل عد الله لعد إلهي وحسيابة هدات قونستي ثم بكتد marka dhibta koowaad ee xasadku waxay ku dhacdaa qofka laftiisa kan xaasidka ku dhacdaa maxaa ku dhaca alham wal hazn murugo joogto ah iyo warwar joogto ah ayaa ku dhaca laba waa maxay waa macsiyo waa dambi ilaahay aad ka gasho waa lagu qoraya xaasid ina tayba ilaahay agtiisa lagu qoraya subhanahu wa ta'ala saddex de waxaad la mid tahay mid ilaahay colaad kula jira oo hadalka xaasidka waa maxay afkiisu waxaad leedahay ilaahow hebel nicmada aad siisay uma qalmo anaa ka roono anaa u qalma ka soo qaado aniga rabbow isi miyaan af xumo ahay miyaan akhlaaq xumo ahay miyaan hadalkii ibliis ahayn ana khayrun minhu uma qalma aadam nicmadan iyo gallada aad siisay ana khayrun minhu anaa ka khayr badan miyaan aftii unaanay hayn hebel masibka maxaa loogu dhiibay anaa ka khayr badan xoolaha ma hebel loo siiyay anaa ka khayr badan aqoonta hebel maxaa loo siiyay anaa ka khayr badan reer hebel maxay noogu taliyaan reerkayga ka fiican reer hebel maxaa masibkaa loogu dhibay reerkayga soo talin jiray waxaasoo idin waa xasada min cindi anfusihim maxaa lagaa rabaa ilaahow u kordhi oo sii oo u badiya rabb alcaalamiin culamadii waxay soo dhigtay casheekh ka mid ahaa ee maalin u ashtakooday waxaa ku sheekhow aayada quraanka ee oranaysa idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim ka adiga isaga xumaanta idinka dhaxayso wanaag ugu celi ka xumeeyba wanaag ugu celi marka sheekhi waxaan ku sheekhay aayadaas waa igu adag tahay waa qaadan kare laaya wax iska celiduna waa igu badan tahay awowyaashay iyo abaha iyo raggii soo dhalay bahal ficil la yiraahdo ka dhaxlay iska celidu waqti waa igu badan tahay baa aayada maxaan ka yeelay ilaahayna wuxuu leeyahay baan ku sheekho idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim kii kuna bacaayo kula dagaalamay saaxiib sokayaba ka dhigo bal aayadu meeshay barasaak kii kuugu darnaa ee xumahaaga faafinay ee dhibtaada faafinay ilaahay wuxuu leeyahay ka'annahu waliyyun hamim ka dhigo sheekhi muxuu igu yiri waa dhintay maanta raxmatullaahi calayhi waana ku dawoobay ilaa maalinta 12 sano ka hor bay sheekhaasi wuxuu igu yiri cid allaala cidda ku dhibteed isleedahay dhibba idinka dhaxaysa fil ghayb idinka oo kala fogoon kula joogin ilaahay ugu ducee Allahu akbar u ducee ilaahu ubadka u baraka ilaahu rizqiga u baraka ilaahu magaca u baraka ilaahu caafimaadka u baraka ilaahu magaciisa hajir ka dhig ilaahu kor u qaad u ducee marka ghaybka aad ugu ducaysid qof aad ghayb ugu ducaynayso oo la tamaninaysa ilaahay qiyaamul leelkaaga aad u baryaysaa ما إنه حمادات دوري صدق إلهي وبري إلهي بقى ما كان وحو كسار لابتا ذو بيقولي سخيمة صدرك كليل كي لابتا كجري بإلهي ساريو قبو أي إلهي كوجو بدلي أقسم بالله إلهي بقى كنت أرتي وابتجابية وانا نجحني كنين كاسي وانا نجحي لك كنين كاسي وانا نجحي لك وهذه قلنا محيطولي كفائدة نعم